السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا وقيبتين اللباد مقالكن كي كوري او يعني قابكي ان استعمال لين باسورد مانجر. طبعا دان مقالكن كي كوري داون مقالكن كي كوري waa qaabka ugu hortagi lahayn in maanta kadib password ilowno soo kale aynan maanta kadibna u baahnayn inaynu password xasuusano oo xifdino inaga password kasta oo aynu account ku samaysano weligeena u baahnayn inaynu xasuusano weligeena uusan naga lumaynin telefoon kasta inuu qaadano computer kasta inuu qaadano email wala inuu tagno muuqalkan kii kore waxaan kaga hadalnaa application ka hadaad tahay qof yani beginner oo computer ku cusub telefoonada ama aqoon fiican u lahayn telefoonada taban muuqalkaas inaad soo daawato ayaan kula talnaa kana aad markaa daawato ama kanta daawato dhameysto ka horena ku noqoto haddii kale oo tahay qof telefoonada iyo aqoon fiican aad loo dhameystirana muuqalkan ba daawo haddii dabcan muuqalkan aad yani kugu adkaado ka koobaad ku laabo muuqaalkan wuxuu noqon doonaa application-ka labaad oo loo yaqaano LastPass runtii ah number 1 password manager runtii aniga agteeda ka soo kalena aaban ku tilmaami karo inuu yani booska gaadhayba marka laga yimaado aniga soo ila muuqdo bal haddaba san soo aragno password manager kan runtii ah anigu aan ku leeyahay ifan dhowr account san soo aragno iyo qaabkan u adeegsanayba ku soo dhawaada qaybta dambe ee muuqaalkeena. halka saaragtaan waxaan qaybtii dambe marka LastPass waa kalkeeno yaala password manager ka runtii number 1 password manager aan anigu arko runtii aan filayo inuu yahay iyaga laftarkooduna waxyaalaha yani marka website-kooda booqato halkaas ay kamid tahay koodhan waa number 1 password manager runtii waxyaalaha faa'iido kule waxa kamid ah waa advanced waa runtii qof kasta oo IT uu isticmaali kara waxyaalaha ka caawinayna waxa kamid ah inuu yani feature aad fara badan oo advanced leh free yahay marka personal application kan bitwarden iyo LastPass ba qof ma ku isticmaalayo free laakiin marka company isticmaalayo ayay iibihiin LastPass hadan soo furo isaguna qaabkan ayuu soo baxay marka mar walba muuqaalka waxa account ayaan hore uga sameeyay account-kan waa account teaser ama test aan tijaabo ku sameynayo haddii aad u baahantahay adiga ayaa ka sameysanaya balse LastPass waa password manager isagu advanced marka runtii haddii san hadda koran ku tilmaamay aanad tahay qof telefoonada ku fiicnayn kan daawo haddii markaa kugu adkaado u laabo application-kii hore dhanka cardskana ayaynu soo dhigi doonaa maqaalkana ayaan joogaa wuxuu igu leeyahay aniga account-kaagii login gare oo email-kayga hadda halkan waa aqoonsaday marka runtii haddaad u baahantahay account aanad ku lahayn haddaan imika idhaahdo log out oo aan halkan oo kale enable aan halkan oo kale okay baan odhanaya aan halkan oo kale okay haddaan halkan oo kale log waxaad dooranaysaa haddaan account ku lahayn create account option-ka hoose ayaad dooranaysaa sidii muuqata marka hadda anigu account baan ku leeyahay marka halkan aan gelinayaa master passwordkayga وسوقان لو كان قراني ما قاسقنا waa kan faultigan sidaas qaabkaas ayuu noogu soo muuqday marka imka autofill baan ogolaan autofill-kan uu weydiinaya waxa weeye tusaale dad gasho website isaga ayaa automatic username-ka iyo password-ka kugu gelinaya browser-ka marka joogto iyo marka application joogto marka isaga ayaa ku oranay fur saartan hadda adigu waxaad isaga ku hagay meesha looga baahan yahay inuu furo okay inuu soo application soo dul fuulo isaga ku weydiinaya accessibility-ga inuu ku helo permission okay wadaanaysa haddaba dad baan inaad password geyso sida dabcan dad bitwarden soo daawatay waa kan password baad gelin kartaa secure note address marka kan uu ka feature badan yahay bank account driver license passport social secure number and insurance policy health marka way badan way password baad ifan gelin kartaa email address instant messenger waa a lot of saaragtan kan SSH oo ah secure shell marka way badan software license baa u dambeeya hadda anu tusaale kale password oo ah sababta inuu muuqaalada diyaarino ayaan gelinaya tusaale kale name-ka waxaan ka dhigayaa aniga magacayga ka dhigayaa okay markaan geliyo hadda halkan folder-ka ayaan imaanaya marka hadii folder hore kugu sameysnaa tusaale kale midal ku qoran tahay ayay sameysan laakiin adiga nan tahay aad folder u baahantay dabcan halkan aad folder ka sameysanaysaa kadib tusaale kale magacayaad ku qoraysaa magaceeda waxaad iskaga qorayaa tusaale kale bilowbaan qorayaa marka waa account iska folder bilowbaan qorayaa marka bilowgaasan kala garanaya haddii kale middle haddii qaar horeysan yihiin
okay haddaan doonayna folder geliyo passwordkana ama xogtaana number dooranaya maqaabil oo iska dooranaya halkan in tusaale kale account baan geliyay account waxaan u geliyay waxa saartaa accounts.somalitech.com baa gashan sababtan geliyo horta ma jiro oo domain saartan somalitech waa channelkeena magaysa insha Allah mustaqbalka dhow waxaan rajaynaynaa in website samayno aynu courses iyo waxyaalo fara badan oo kale soo gelin doono waxaan geliyay accounts.somalitech.com oo halka la iska register garanayo markaas hadda koor ku tamaam domain-ku ma jiro waxaad gelinaysaa website-kaada adigu account-kan ka samaysatay hadaad Google Gmail samaystay Google account samaystay hadaad Microsoft account samaystay hadaad iCloud ama Apple account samaystay whatever ama website-yada kale internetka halkaas gelinaysaa halkan username-kaad gelinaysaa magaca aad ku samaystay magacaaga haduu yahay email ID-ga aad ku samaystay gelinaysaa hadii yahay username caadi ah website-yada username-ka kugu oranayana saartan halkan aanu username ayaan geliyay Maxamed/Somali baan ku qoray halkan waa passwordkaaga waad gelinaysaa magacaaga waxaan geliyay 213456 ilaa inta passwordkaas ayaan geliyay halkan oo kale hadaba waa note-kan waxa weeye xogtaad gelisay halkan waa optional horta ma waxaad mar khasab kugu tahay inaad geliso laakiin haddaad u baahan tahay inaad xogtan hesho aad dooranaysaa waa ma wax khasab laakiin waa optional haddaad u baahan tahay waad gashan kartaa hadaba marka ma timaado favorite option waxa weeye waxyaalahan jeclaysto akoonada iyo favorite kan xiiseeyo require password prompt waxa marka halkan oo kale qofku galo waa xasaasiye mar labaad hal weydiiyo password nafa autofill kan website kan oo kale weliga hawada gelinba oo automatically hay marka saad qoor ku sheegay haddii imka browser ka tago oo aan accounts.somalitech galo intaan username password ka gelin application kan password manager isaga automatically Google leeyahay password iyo username marka waa autofill ka kaas wuxuu leeyahay weliga hay Google aniga qaab automatic marka waa xog hadii tahay xasaasiye autofill ka xiri kartaa soo galaad xasaasi tahay option ka labaad waa labada lambar optionada baad u furi kartaa soo kala xasaasi yahay saddexda dambe baad u furi kartaa ka koobaadna waxa weeye inuu favorite kaaga yahay marka tusaale kale inuu favorite kaliya ayaan dooranaya kadib save ayaan oranaya saas ay xogtaygu save garanaya hadaba inka ma oga waxaan geliyay password manager-kana inaan xog sax geliyay inaan email la geliyay inaan wax iska qorqoray sababta waxa weeye ma ogaanayaan password manager-radan xogtan aad gelisay inay tahay xog sax taasoo keenaysa inaysan wax la gelinayo ogaan marka san muuqaalka hadda goorn ku tilmaamay insha Allah muuqaal soo socdo waxaan kaga hadli doonaa balse password manager-radu u shaqeeyaan ee qaabka qolada account-ka ama cloud-ka aan xogta dhiganayno leh ama server-ka la virtual server ama server caadi ah noqdo aysan u ogaan kareen password-keena qaabka technology-gan u shaqeyso insha Allah muuqaal soo socdo kaga hadli doonaa marka qaabka cusub ay xog allaale xogta u baahantay oo qaybahan u gelinaysa waxaan filayaa qof walba iska fudud imika dad u baahantay inaad email address geliso email-kaaga username-ka password-ka server-ka uu ku xidhan yahay oo aad tusaale kale haduu yahay email-ku gmail.com server-ka ah ama Google server bad qori kartaa portiga waxa kale SMTP server muhiim ma aha inaad ogaato laakiin imka SMTP server-kaas oo kale waxa weeye waxaad ku qoraysaa mail.google.com oo ah inaad iyaga isticmaaliso SMTP server-kooda iyo portigooda marka runtii inaad waxyaalo badan buuxiso ma laakiin saga inta adigu garanayso saga ku haynaya haddaan qaybtiisan galo all items halkan option kan sare waxa weeye inuu qudsiyo itemada oo dhan saartan hadda labadaas sare waa favorite bay dooran labada hoosena waa passwords iyaga favorite ima doorna secure node waxyaalaha noodadka secure ka baad gelin kartaa saalo kale halkan aad qori kartaa wixii nooda haddaan ka noqdo addresses-kii baad halkan gashan kartaa halkan kale waxaad garan kartaa payment cards oo ah runtii kaararkii halkan kale browser weeye browser-kan waa browser aan la ogaan karin tusaale halkan haddaad imka internet ka gasho waxaad booqanayso dhacdi ma oga website kastaad galayso cidi ma oga wax allaala waxaad isticmaalayso cidi ma ogaanayso laguma tixraaci karo history-gaaga lama arki karo marka waa qaab aad si qarsoon internet ugu isticmaali karto browser qarsoon weeye dhanka security haddii nimaadno create a password halkan password marka haddaad muuqaalkan bit warden soo daawateen waxa jira inaad adigu samaysan karto password haddaan ka tago passwordkan waa password adag tusaale imka passwordka ka qoran uu soo automatic kugu sameeyay waa 16 xaraf saddex goos oo qoran password langad waad copy baad oranaysaa haddaad imka tusaale u baahan tahay account cusub Facebook inaad samaysto passwordkaas aad ku baasto garanaysaa hadhow account-kaaga marka labaad Facebook-aaga gal uma baahnid passwordka la xasuusato saad password ku hesho automatically markaad facebook.com gasho haddii uu ku xulan yahay markaad passwordka save garanayso uu ku xulan yahay autofill-kii aan hore soo aragnay isaga ayaa automatic ku gelinaya haddii uu autofill-ku ku furnayna adiga ayaa halkan imanaya oo gashanaya haddaad isticmaashay passwordkana save baad oranaysaa kadib passwordka automatic buu kugu save garanaya ku oranaya account-kaad iskaga register gareyshay sheeg markaan copy gareystay
tusaale haddaan Facebook u baahnaa magacii aan waxaan odhanaya Facebook oo kale ama akoonkan aan facebook.com aragtaan social isaga automatic wuxuu leeyahay folderka usernamekayga waxaan ka dhigay maxamed ba maxamed baan ka dhigay passwordka waa nodeka waa kadib safe ayaan odhanaya okay hadda aan soo noqdo oo aan qaybta koobaad imaado dabcan isaga dib u soo xidhay aan furno qaabkaas ayuu passwordkaaga kugu save garaynaya okay facebook.com halkaa geliyay haddaan view idhaahdo itus wakaa xogtii saan aragno marka qaabkaas ayuu passwordka haddaan kusoo noqono qaybta securitygeeni feature fara badan emergency access waa peace of mind in an emergency waa markaad doonayso si degdega inaad u access garayso akoonkaan marka waa qof aad ku kalsoon tahay oo kale halkan gelinaysaa oo tusaale kale haddii aad mar joogto meel muhiim ay ku tahay laakiin aad waa akoonka access garan karin ama wadan laga xiray aad joogto application-kan oo kale si kastaba u dhacday aad halkan qof u ogolaanaysa inuu akoonkaaga access garan karo qofkaas laga wuxuu ku leeyahay waa people I trust oo qof aan ku kalsoonahay halkanna waa dad baa kugu kalsoon adiga oo qof baa imika adigu qofkaad halkan gelisay adaa ku kalsoon laakiin hadduu qof akoonkiisa adiga halkan kugu soo darsadana halkan waxaa soo gelaya dadka adiga kugu kalsoonaya ee akoonkooda geli karayso halkan oo kale waa security challenges oo runtii waxyaalaha security marka haddaan start idhaahdo halkan oo kale waxa uu kugu sheegayaa iminka inta adiga telefoonka inta adigu waad secure tahay waa 50% buu ku leeyahay waxaad halkaa gaadhay intaasoo qof numberka intaa la eg wuxuu ku leeyahay password managerkaaga passwordkiisu waa adeeg yahay iyo waxyaalahaas uu ka hadlaya average password strongest 6% marka waa xog adiga ku saabsan oo adiga security-gaaga iyo waxyaalaha lamid ah buu kuu sameeyaa halkan waa xog dheeraad tusaale akoonada isticmaashay uu ku tusaya security-gooda hadda labadan waa very secure buu ku leeyahay labada waa akoonku isagu noo sameeyey laakiin kuwii inagu passwordka 2 3 4 5 aynu gelin waxaa aragtay inuu 25% macnaha aad bay u liitaan buu leeyahay passwordkooda okay haddaan ka nimaadno waa security dashboard oo qaybteeda security-gooda aad ka arkaysaa magaalkan oo kale wuxuu kuu sheegaya more tools to keep you safe xoguu kugu siinaya adiga kaadhiga iyo safe magaalkan wuxuu ku leeyahay information buu ku siinaya magaalka tusaale oo kale haddaan application-kan isku dayo inaan muraayadiisa aan application-ka telefoonada aan ku dubno muraayadooda aan soo furo kadib aan suraxdo isku day duub last pass-kan xogta ka socdo qofkii telefoonka gacanta ku helo ma duubi karayo application-ku wuu blow garaynaya screen-ka telefoonka in la duubo marka runtii wuxuu kugu siinaya kan oo kale xog information security ah oo ayagu ku hagayaan marka runtii intaas ayaa ugu muhiimsan device kasta oo aad qaadatana waad ka helaysaa saada kuu sheegay iminka halkan laptop baa yaala sa aragtaan passwordhadan halkan ku save garaya haddaan akoonkan ka galo computerka waan helaya browser extension buu leeyahay inta wuxuu ka jiraa dhammaan operating systemyada Windows Linux Mac OS Android iOS oo ah Apple iPhone dhammaantood waad ka helaysaa taas oo ganaysa dhammaan digital life-kaagu inaad haysato marka runtii haddaad application-kan oo kale wuxuu aad functionality-giisa faraha badan oo aad u arkaysa haddaan qaybta setting-ka galo markaad joogto computerka marka halkan setting-kan idinku waxoogaa processing ku sameeya runtii ma doonin muuqaalku inuu nagu dheeraado halkan oo kale waa privacy-goodii advanced options-goodii runtii taas ayaan doonay inaan muuqaalka ku soo afmeero labada application dabcan kii horena muuqaalka hore haddaad u baahantay ka hore haddaa wadana muuqaalka dhanka kaadhiska keg haddaad kan u baahanteena dabcan waxaan filaya in muuqaalkan kaaga filan ku aragnay inaad idinku browsing dheeraad ku sii samaysa intaas ayuu nagu talagalay dabcan muuqaalkan waxaan rajaynaynaa dabcan muuqaalkan inuu wax ka faa'iiday hadday dhacday oo wax ka faa'iiday waan rajaynayo dabcan like inoo saar haddii aan waxba ka faa'iidin waqtina ku halameeyay iyadana dislike ku sameey muuqaalka haddii ay tahay markii ku wareysad kanaalkan soo boqotay una aragto mid wax ka faa'iideysana subscribe inaad inoo saarto ayaan jeclaan lahaa inta muuqaalkan ku xig kulmi doono annaga iyo idinka waxaan idin rajaynayaa khayr wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh